ninka siyaasiga ee muqdisho jooga dawladnimadeena hadduu diidan yahay dagaalkeenu la galana waa mid diblomaasiyadeed laakiin ma aha in la isku bu'o oo kolba cuqdad la inoo galiyo marka u dambeysana de waxay ku soo koomayaan dhowr magaalo ayay ku soo koomi doonaan waxaan ognahay 24 saacadood dad masaakiina oo iyaga nolol u baahan oo dadka muqdisho degana oo maalinna la qarxinayo maalinna maad aragtay qiimihii noloshoodu qiriqir ku jirto in loo bu'ayo dadka Soomaaliyeed baynu ognahay islaanta muqdisho joogta miskiinta ayana ka yare bajaajka ku shaqaysanaya isagiiba dawladnimo doonaya sabab aniga la igu buuyo inaan u duceeyo mooyaan Ilaahay nabadgeliyada iyo wanaaga iyo xasiloonida aan haysana si mooyaan sabab bartan aan ugu booliyoobo garanba maayo isir Soomaaliyeed iyo wada dhalasho iyo wax isku ahaansho waxaan ka weyn bayna dhaxyaan war ummadda midnimadeeda iyo walaalnimadeeda aanu dhowr ka wasaaradda ahaan runtii horey waxaan ula macaamilnay Khaatumo maamulka Khaatumo oo qayb kamid ah dhulalkaas hadda Soomaaliland ay sheegato oo dawladda Soomaaliya intay dagaal xoogan lagu qaaday oo maaragtay maamulka Soomaaliland ka taliyay oo dhibaatooyin badan ka geysay dadkaas dawladda Soomaaliyana ay soo dhaweysay gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha markii koowaad in dadkaas xasuuqana laga daayo dhibaatada lagu hayana laga daayo xaqna ay u yeeshaan inay dawladda Soomaaliya oo ay rabaan inay ka mid noqdaan aan laga hor istaagin finally waxaan garab istaagnay dadkaas la garab istaagay halkaana lagu soo dhaweeyay waxaana loo aqoonsaday inay maamul ku meel gaara meeshaas oo dawladda federaalka ah hoos yimaada hadda waxa sidaas oo kale aan marti gelinaynay maalmihii la soo dhaafo dhan oo joogay magaalada Muqdisho horeyna u joogeen oo xildhibaanada iyo senatoriska iyo wasiirada ka soo jeeda gobolka Awdal ayaa dhaqdhaqaaq iyo shirar badan waday iyadana waan dhiirigelinay arrintaas waxaan rajaynaynaa gobolkaasi inuu isaguna maamulkiisa u gaarka u helo oo ka madax bannaan kooxaas infisaaliyiinta marka u dambeysana de waxay ku soo koomayaan dhowr magaalo ayay ku soo koomi doonaan waxaanu kala u mahadnaqaynaa runtii cid kasta oo af iyo adinba nagu taageertay oo aan ka xusayo xubno kamid ah golahaygii baarlamaanka oo aan leeyahay waad ku mahadsan saaxiibayaal maxamed abiib yuusuf barkad jaamac batuun axmed jaamac saalax salabaan nuur warsame food iyo ninka la yiraahdo mubaarak muuse ismaaciil aad iyo aad baad u mahadsantiin